Isbitaalka Somcare ee magaalada Garowe dhawaan laga furay halkaasoo ay dhakhaatiir ka kala yimid dalka dibadiisa ay howlo caafimaad ay ka wadaan ayaa dhawaan waxaa halkaasi booqday Axmed Faarax oo ka mid ahaa dadka bukaanka ah ee la kulmayay dhakhaatiirtaasi. Axmed waxa uu hore ula kulmay dhakhaatiir isla markaasna waxay ku sheegeen in kaliyiisu ay fadhiyaan isla markaasna uu u baahan yahay dhaqitaan. Sida uu noo sheegay Axmed waxa uu sheegay in 6 jeer oo kale la dhaqay. Haddaba markuu la kulmay dhakhaatiirtan baaritaan dheeriya kadib waxyaabaha uu kala kulmay iyo caafimaadka uu halkaasi ka helay ayaa waxa uu nooga warramaya Axmed Faarax. wuxuu kaga bedelan yahay dhakhtarkii hore aniga wuxuu igu sheegay in keliyuhu istaageen dhaqitaanna waa ii dira dhakhtarkan haddaan u imina keliya waxba ma qabaan xanuunkii ilaahay baa iga dulqaaday xanuun baa qabtay anoo iska jooga baa kelidaa laygu dhuftay halkaa bidixda ah waa dhacay waa matagay waa xanuunsaday waa rafaaday adigu muddo 7 beri baan miyi jiif aniga 6 mar baa lay dhaqay 6 mar baa lay dhaqay adigu kombiyuutarna way saaray wuxuuna igu sameeyey shay baarana way iga qaadeen markii aan maqlay dhakhtarka Somcare imanaya yaan dhaqitaankii waxaan ka soo goostay fasax warqad fasaxaan soo goostay waana la kowsaday oo fadhigii uu ditoorku fadhiistay baan la soo kowsaday 3 bish waa shay baaray waxba iguma sheegin daawo yar oo fudud 30 xabo kiniin iyo buuna yoqor keliyaha iyo dhaqitaanka ku jira wax badan bay ku kala duwanaayeen nina dhaqmo ii diray nina waa jooji caafimaadkayga baan ku noqon taamka Dr. Calaa oo ah dhakhtarka daaweeyay Axmed Faarax ayaa isna ka sheekeynaya waxyaabaha uu kala kulmay ninkan bukaanka ah. bukaankan magaciisa Axmed wuxuu ka sheeganayay in loo sameeyo dhaqis kaliyihiisa isbuuc kasta waxa lagu sameeyaa 2 jeer waxaana ku xirnayd catheter ugu xirnayd halbowlaha sare waxaan u sameynay markuu noo yimaaday baaritaan ultrasound baa laga saaray habdhiska kaadmareenka waxaa cadaatay in kalidiisa midig ay xoogaa xanuunsan tahay shaqadeedu aysan si fiican ahayn laakiin kalidiisa bidix ay ahayd normal oo si dabiici u shaqaynaysay wax dhiban aysan ka haysan waxaa u dirnay inuu soo sameeyo baaritaano kala duwan oo dhiigga iyo kaadida si loo hubiyo in kaliyiisa u shaqaynayaan si fiican iyo in kale markii natiijadu soo baxday wax soo baxay in natiijada dhiigga wax soo baxay in kaliyiisa ay fiican yihiin wax dhiban aysan qabin natiijadii kaadida waxay sheegtay in uu qabo infection badan waxa loo sameeyay baaritaano kale lagu celiyay si loo ogaado in kalidu shaqaynayso wax soo baxday in kalidu ay dabiici tahay oo shaqaynayso aysan u baahneen wax dhaqid ah maanta waxa laga furayaa catheterka waayo uma baahna dhaqis dambe kaliyiisu shaqaynayaan si fiican si normalka oo laga rabay waxaana loo qoriyay la siinaya fitamiino kula talinaa bukaanada kaliyaha laga dhaqo inaysan ku degdegin dhaqista markii horeba ay dhowr mar oo kala duwan ay sameeyaan baaritaano kala duwan. Maxamuud Jaamac waxa uu isna ka mid yahay dhakhaatiirta qalliinka ee Somcare ka howlgala waxa uu si guud uga warbixinayaa isbitaalka guud ee Somcare Hospital Germany. adeegyada isbitaalku fidiyo waa adeegyada isbitaaladka casriga adduunka ay fidiyaan ba kamid yihiin waxaa kamid ah cudurrada ku dhaca neerfaha iyo qalliimadooda waxaa kaloo kamid ah cudurrada ku dhaca kaadi mareenka iyo qalliimadoodaba sidoo kale isbitaalku wuxuu fidiyaa qalliimada guud iyo daaweynta cudurrada guud adeegyadaas ayaa hadda ugu xoog badan u shaqeeya isbitaalku dhammaan qaybihii oo dhan wuu leeyahay hadda si toos ah waxa shaqadoodu u socotaa 3 qayb uu sheegay dhammaan qaybaha loogu talagalay isbitaaladka adeegyada in bixiyaan loogu talagalay uu leeyahay waxa kaloo ka mid ah qaybaha isbitaalka pharmacy daaweyn casri yaalan oo European level waxa kaloo ka mid ah shaybaar isaguna qalab casri yaala oo taqaana shaybaar fiican oo si fiican diagnosis ku saxaya waxa kaloo ka mid ah raajadii oo iyadana soo sheegay oo digital x-ray ah waxa kaloo ka mid ah qaybta qalliinka oo xawaysi antenatal sidoo kale waxaa yaala qalabka lagu qalo
kala goysyada jilbaha oo kaamiradiisii lagu qalay laha waxa kaloo kamida qalabada kale aan soo sheegay oo ultrasonka ECG-ga iyo EEG-ga oo iyaguna nooca ugu dambeeyay ugu casrisan ah oo si fiican diagnosis-ka u soo saaraya mahadsanidin